xubnaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay sida ay warku dhigeen qoraal ka soo baxay wasiiradii xilka laga qaaday ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Marwo Qadre Axmed Ducaale taas oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid fidno ka dhex abuurayay ganacsatada ku dhaqan gobolka Banaadir isla markaasna aan ku fadhin sida ay yiraahdeen sal sharci waxay sheegeen mas'uuliyiintan in warqadaasi lagu magacaabay sida ay yiraahdeen xubno aan doorasho ku imaanin kuwaasi oo matali doona rugta ganacsiga iyo warshadaha ee gobolka Banaadir magacaabida ayay sheegeen inay tahay mid meel looga dhacay hanaankii loo baahnaa isla markaasna waxay sheegeen in rugta ganacsiga aanay hoos tagin wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha balse ay tahay mid ka timid ururada bulshada rayidka doorasho la'aanteedna aan qof loo magacaabi karin xilkaasi Cabdi Abshir Dhoore ayaa ka hadlay arintani ay soo saartay maalintii ugu dambeysay shaqadeeda oo ay xilka ka tageysay wasiiradii hore ee ganacsiga waxay caqabad cusub u abuureysaa hogaaminta wasaaradda iyo wasiirka cusub waxay horinaysaa khilaafaad cusub oo la geliyo ganacsatada gobolka Banaadir oo culeyskeeda iska leh afar inagoo og in wadankeena uu ku dhaqmayo nidaamka dhaqan dhaqaale ee xorta ah ama free market economy la yiraahdo waxa nasiib darro ah maamul xumaana ah in ganacsatada oo wadankan lafdhabar u ah noloshiisa iyo dhaqaalihiisa maamulkooda iyo isdoorashadooda faraha lagula jiro iyagoo ka tirsan bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed ee haba yaraatee aan hoos tagin dawladda wasaarad kamid ah iyo xafiisadeeda si kastaba xubnaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed oo heer qaran ku hadlaya waxa ay sheegeen inay cadeynayaan inaanay aqoonsaneen qoraalkaasi ka soo baxay wasaaradda ganacsiga iyo waxa uu tilmaamayayba Nasser Maxamed Cabdi Universal TV Muqdisho